Sheekadeena maanta waa sheeko cusub oo aad u xiiso badan. Waxay ku saabsan tahay libaax duq ah iyo dabaco. Aan idiin bilaabo sheekada. Libaaxa duqa ah waa kana, laakiin weli isma oga in uu duq yahay. Goormuu is ogaanaa libaaxan in uu duq yahay? Aan aragno. Alla ciil badanaa, maanta xitaa bakeelo maa orod igaga baxsaday. Wallay waan duqooway, maanta kadib xoog wax kuma qabsan karo. Waa inaa godkayga isaga laabtaa, maadaama aan duqooway. Libaaxii oo aad u niyad jabsan ayaa ku soo laabtay godkiisa. Wallay waan duqooway, maanta xitaa bakeelo xataa ma soo qabsan waaye. Waa inaa fikiraa. Markaan yaraaye bakeelo xataa iska dhaafay, waxaan cuni jiray xayawaano ka waaweyn. Loogansi iyo gari iyo xayawaano aad u waaweynaa cuni jiray. Bakeelaha agtiida wuxuu ka ahay wax yariis. Maanta bakeelaha xataa waan soo qabsan waaye. Saantala maahan, waa inaan fikir la imaadaa. Fikira igu soo dhadhacay. Waa inaa xayawaanadoo idil aan u qabtaa shir oo aan dhahaa maalin walba hal xaba ay yimaado oo idin ka mid ah ay soo booqdo maadaama aan ahay boqorkii keenta. Xayawaanada duurka ku nool ma ii maqashiin, biri shir ayaa leenahanay. maadaama aniga ahay boqorka xayawaanada, markaan kadib waan duqooway. Waxaan rabaa in maalin walba laysoo booqdo oona laga warhayo maadaama aan duqooway. Waxaa la rabaa jagadan oo boqornimada inaan iska wareejiyo. Waxaa la rabaa maalin walba mid idinka mid ah inuu ii imaado oo isoo booqdo maadaama aan duqooway. Saas ayaan idiin sheegi rabay, ee sidaas ula socda. Maalin walba hal idinka mid ah ha ii imaado. Ii imaado maalin walba waxaa idin siiyaa tababar geesinimo iyo boqortinimo. Libaaxii isoo aad u faraxsan oo isla fikirkaygu uu ku hirgalay ayuu soo baxay. Wuxuu isaga soo laabtay godkiisii. Xayawaanadii kale oo la yaaban fikirka oo soo jeediyey libaaxii ayaa isfiiriyey. Kadib waxay go'aansadeen inay sagaaro ay bilowdo. Sagaaradii ayaa soo baxday oo waxay soo aasatay dhankii iyo libaaxa. Sidee u bilowdo ee u noqoto xayawaanka ugu horeeyay ee bilaabo in lasoo booqdo libaaxii. Waxayna soo aasatay godka libaaxa. Waxayna ku tiri libaaxa, boqorkii xayawaankow iska waran. Waxaa noqday xayawaankii ugu horeeyay ee bilaabay in lagu soo booqdo. Xaaladeyda ma wanaagsana, aad ayaan u xanuunsanahay. Waxaan dareemaa xanuun zaa'id, meel walbo ay xanuunaysaa. Waan ogahay inaa xanuunsan tahay. Adiga waa fiican tahay oo xayawaanadoo idil waa ka fiican tahay. Waxaan kugu talgalay inaan ku siiyo hadiyadan oo hoo cun hadiyadan. Hadiyadan waxaa i siiyey aabaheyga markuu duqoowuu i siiyey. Anina markaas waa yaraaye. Hadda maadaama ani aad duqooway, adiga hadiyadan cun. Waa mahadsan tahay boqorkii xayawaankow. Sagaaradii markii istiri hadiyadan oo libaaxa ku siiyey cun, markaasuu libaaxa intuu ku soo booday oo sagaaradiina sidii ku cunay. Maalintii ku xigtay libaaxii waxaa u imaaday haddana dameer fanow. Dameer fanowgii markuu u soo galayna sidii ayuu u khiyaanay haddana libaaxii sidii ayuu ku cunay. Maalintii kale haddana waxaa u imaaday dabagaale, haddana sidii ayuu u cunay. Maalintii kale waxaa u imaaday haddana bakeele, haddana sidii ayuu u khiyaanay wuu cunay. Maalintii kale waxaa u imaaday daanyeer. Daanyeerkii markuu saan u soo galaysana waa lagu soo booday, sidii ayaa lagu cunay. Mar walba xayawaankii u imaadaaba ma cafineynin oo wuu cunaayey. Xayawaankii u soo galaa ma ka badbaadeynin. Maalintii dambe dabaco ayaa soo baxday ee waxay soo aasatay dhanka iyo godka libaaxa, iyadoo yaaban oo xayawaanadii libaaxa soo aastay ee waysay kulligooda. Markaas ayay dhulka fiirisay. Waxay aragtay raadka xayawaanadii iyada ka horeeyay
oo gudaha galayaan, raadka soo baxaya dhan aysan jirin. Markaas ayay waxay istiri xayawaanadoo idil raadkooda gudaha leyd oo galaya maahine xayawaan ka soo laabta ma jiro. Talow xayawaanadii oo idil meesha muu ku dhex cunay, mise godka libaaxa ayaa leh erid kale oo laga baxo oo dhanka kale ay ka baxoyiin. Waa inaan fiiriyaa. Dawacadii oo shaki weyn ku jiro ayaa hore usoo dhaqaaqday oo godka ayay soo aasatay. Markaase waxay aragtay xayawaanadii kasoo horreeyay lafooda meesha yaalo. Markaase waxay tiri, boqorkii xayawaanka oo iska waran. dawacoy aad ayaan u xanuunsanahay ee gudaha hore usoo gal banaanka maxaa u taagan tahay. Anaa kuu sheegaya meelaha laga hayo iyo meelaha xanuunka oo iga badan yahay ee hore usoo gal godka. Maya aniga godkaan ma soo galaaye. Xayawaanadii soo galeen godkaan oo idil waa la waayay. Raadkoodii oo soo galayeen bisaa la arkaya, raadkoodii inay soo laabteen oo idil ma la arkayo. Lafahoodina meeshaan ayay ku yaalaan. Aniga godkaan ma soo galaaye, meeshaydaan taagnaanaa ee meeshaada ka soo hadal. Isla markiiba libaaxii wuu ku soo booday dawacadii oo wuxuu fahmay inay aqligiisa fahantay. Dawacadiina isla markiiba sidaas ayay ku soo oroday, saas ayayna ku badbaaday. Isla markii xayawaanadoo idil ayay isugu wacday wayna u sheegtay, saas ayayna ku badbaaday idii xayawaanadii kaleba. Dulucda sheekada waxaa waaye in wax walbo la iska fiiriyaa oo aanan lagu degdegin. Waayo dawacada markii ay sii socotay waxay iska fiirisay raadadkii xayawaanadii ka horreeyay iyada. Waxay aragtay xayawaan walba oo meesha galaa in uusan soo noqonaynin, oo raadka xayawaanka meesha galaya bay aragtay, raadka soo laabanayo way waysay. Markaas ayay waxay dareentay in xayawaanadii meeshaan ay galaan aynan soo laabanaynin. Ayadoo shakigaas ku jiro haddana markii godkii ay imaatay, dhinacaha markay iska eegtay waxay aragtay lafihii xayawaanadii iyada meesha kaga soo horreeyay. Sidaas ayayna ku badbaaday. Marka wax walba aad suubinaysid waa inaad marka hore ka fiirsataa. Haddii aad ka hesho sheekadan la sii wadaag walaalahaaga kale. Intaan ku kulmi doono sheekadan sheekada xigto, guuleysta alla idinkii.